inkasta oo caalamku maanta uu horumar tiknoolajiyad iyo ilbaxnimo qani ka noqday, haddana carre edeg guudkeeda waxaa weli baaqi ku ah bulshooyin aan waxba ka calfan horumarka horseeday in dayaxa la tago ee aadanuhu ku naaloonayo sabankan. Toddobaadkan waxaynu si gaara diiradda u saari doonnaa mid ka mida kuwa ugu cajaa'ibta badan qabaa'ilada ka hadhay horumarka ka hana qaaday kownka. Inamarii aan tagnee jasiiradda Sentinel ee dhacda dalka Hindiya oo muddo 10 sano ah ay si shakhsi ah isugu go'doomiyeen qabiil aad la fajici doonto noloshooda oo loo yaqaano Sentinelese. Sentinelese waa qabiil aan weligood la hadal dhexgelin xidhiidhna aan la yeelan cid aan iyaga ahayn. jasiiraddan loogu magac daray ee Sentinel ayay degganaayeen muddo lagu qiyaasay 60,000 oo sannadood, mana jirto taariikhda inta la og yahay cid aan iyaga ahayn oo jasiiraddan cag saartay. waa qabiil madow ah oo taariikhyahanadu ay sheegaan inay Afrika ka soo hayaameen qarniyo badan ka hor, iyagoo hoy biday jasiiraddan oo hodan ku ah kaymo jiq ah oo ay adag tahay in si fudud lagu galo. waa khatar oo cid aan Sentinelese ahayni kuma dhacdo inay kaymahan dhex mushaaxdo. cid kasta oo sheedaal uga soo dhowaatay ayay leebka la boobeen, iyagoo aan uga tudhaynin oo beerka ka saaraya. cid kasta oo jasiiraddan si kama ah ugu soo dhowaatay ayay natiijadeedu noqotay geeri. sannadkii 2006 niman Hindi kalluumaysato ah ayaa jasiiraddan ugu soo dhowaaday si aan ku talagal ahayn. markii ay loloodeen kadibna seexdeen doontii ay wateen dusheeda, sidaana ay saxiinaddii ugu soo dhowaatay jasiiradda. kalluumaysato kale ayaa u dhawaaqay oo uga digay khatarta, laakiin may maqal hurdada oo la dheeraatay awgeed. sidaana ragga Sentinelese oo ku hubaysan gamuunno iyo qaansooyin ayaa dhegta dhiigga u daray. waxaa adkaatay xataa in meydkooda la soo qaado. diyaarado ciidan oo loo diray inay meydka baadi goobaan ayaa ku haftay fallaadho fiiqni badan oo sida roobka ugaga soo dhacayay xagga kaynta jasiiradda, sida ay ku warrantay warbaahinta Geobrother. sannadkii 1974 wariye ka socday warbaahinta National Geographic oo isku dayay inuu ku dhowaado jasiiradda si uu muuqaalla uga duubo qabiilkan ayaa ka war helay fallaadh lugtiisa ku taalla. waxa uu ahaa gamuun ay soo gameen toogdheerayaasha reer Sentinelese oo markiiba ka war helay dhaqdhaqaaqa wariyahan u ooman inuu xog ka keeno noloshooda. sannadkii 1981 shaqaale markab laga leeyahay Hong Kong ayaa dhimasho ku dhowaaday kadib markii uu markabku kaga cilodoobay meel u dhow jasiiradda, taasi oo sababtay in Sentinelesku ay weerar ku soo qaadaan iyagoo adeegsanaya saxiimado loox ka samaysan. si dirqi ah ayaa shaqaalihii lagaga daadguray. dawladda Hindiya ayaa laga soo bilaabo sannadkii 1968 isku hawshay inay xiriir la samayso qabiilkan. markii ugu horreysay ee si nabadgelyo ah sheed lagagala hadlo ayaa ahayd sannadkii 1991 markaasi oo koox dawladda ka socotay ay qumbe u daadiyeen. qumbaha ayaa jasiiraddan aad looga qiimeeyaa, laakiin nasiib darro kama baxo.
maalintaa kadib waa loo taag waayey in mar kale xidhiidh lala sameeyo. markii la gaadhay sannadkii 1997 ayay gebi ahaanba dawladdu joojisay dadaalladii lagu doonayey in lagula xidhiidho qabiilkan. waxaa loo daayey noloshooda oo faraha ayaa laga qaaday, sida mar kale ay ku warrantay warbaahinta Jia Brother. lama yaqaan luuqadda ay ku hadlaan iyo haddii uu jiro magac ay isugu yeedhaan marka laga reebo magaca Sentinelese oo caalamka looga yaqaano.